banaadir maanta waxay inku fadhisaa ama waxay inku keentay meeshaan oo inku wacday waxay tahay ma ahan kaliya jaamacadu inay marketing ku jirto ama xayisiis jaamacadu meeshaan waxay u keentay ardada inay tusto bal banaadir hore waa loo yaqaanay maxaa soo kordhay ku soo dhawaada banaadir ku soo dhawaada ardadeeda ku soo dhawaada xarun u qalanta in wax lagu barto waxaan u mahad celinaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadan qiimaha badan iyo intii soo qaban qaabisay iyo iskuulada maamulayaasha iskuulada iyo ardayda nagala soo qayb galay barnaamijkan dhammaan waan idin mahad celinaynaa waxaan idin leenahay ku soo dhawaada munaasabadan qiimaha badan bandhigan bandhig aqooneedkan waa bandhig aqooneedkii nuuciisa ugu horeeyay lagu qabto waddanka Soomaaliya si guud waa bandhig aqooneedkii ugu horeeyay jaamacadda Banaadir ay halkan ku qabato maadaama nuucaas uu yahay maxaa keenay sababta keentay maxay tahay danta laga leeyahay maxay tahay waxa aad ay u arkeen maamulka jaamacadda Banaadir baahi aad u weyn in ay u qabaan ardayda Soomaaliyeed markii ay ka qalin jabiyaan iskuulada doorashada jaamacadaha inay dhibaato aad u weyn ay ka qabaan taas marka aan aragnay waxaan dareenay ka maamul ahaan si guud jaamacadda maamulkeeda oo dhan in baahi loo qabo ardayga intii auna jaamacadaha dooran in jaamacaddu ay u samayso bandhigan oo kale marka ardayga uu arko waxqabadka jaamacadda iyo qalabka jaamacadda iyo agabka iyo laababkeeda iyo waxtarkeeda asaga ayaan iskala fursadda qanaacada laakiin anaga waajibkana saaran waxaan u aragnay in ay tahay in ardayga indhihiisa wax ku arko inta uu doorashada gelin dhammaan marnamada waxaan idin leedahay waa ku mahadsantihiin soo dhawaada jaamacadda Banaadir kuma koobna Soomaaliya oo kaliya waxa xiriir fiican la leedahay caalamka waxay ku jirtaa ururo badan oo caalami ah oo ka mid yahay ururka midowga jaamacadaha Carabta oo ka mid yahay ururka midowga jaamacadaha Afrika waxay ku jirtaa ururka Somali Rain oo ah dallad cilmi baaris iyo aqoon ay leeyihiin jaamacada ka mid ah jaamacadaha ka jira Soomaaliya tasiilaadka ay leedahay awgeed ayaa jaamacaddu waxay u fududeysay inay soo saarto arday fara badan qiimana leh meelo badan oo adduunka ka mid ah takhasusaad ka soo sameeyay ilaa PhD kana shaqeeya hay'ad caalamiya kuwa maxalliga iyo kuwa shirkadaha runtiina lagu qiimeeyo qofka waxbarashadiisa meesha uu ka yimid Banaadir waa jaamacadda ugu horeeya ee Soomaaliya Afrika waxay kaga jirtaa qayb weyn waxyaabahaasna waxaa u dhaliyay ay ku gaartay tasiilaad waxbarasho ay leedahay tasiilaadkaas oo ka mid yihiin cisbitaal weyn oo ardayda lagu tababaro ay ku qaataan waxyaabaha practice-ka waxa ka mid ah beero waaweyn iyo kuwa yar oo wax lagu baro iyagana kulliyadda beeraha ka soo duwan waxaa jira laabab oo jaamacad kulliyadaha kala duwan ay leeyihiin waxay leeyihiin fasallo qalabaysan oo u dhan yihiin agabka waxbarashada oo dhan waxay kaloo jaamacaddu leedahay dugsi sare oo jaamacaddu gaar u leedahay loogu magac daray hormuudkii hore kulliyadda beeraha Allahu naxariis Dr. Hiraabe oo iyadana arday ka soo saarto waxay kaloo leedahay kulliyad jaamacaddu maktabad weyn oo insha Allah aad arki doontaan intaad meesha joogtaan kuma koobna waxyaabaha ay jaamacadda Banaadir bixiso shahaadada koowaad kaliya waxay leedahay qayb dhan oo la yiraahdo dugsiga takhasuska oo bixiyo takhasusyo kala duwan oo shahaadada labaad ah kulliyaddu waxay leedahay jaamacaddu kulliyada kala duwan oo gaaray ilaa 12 kaas kulliyadood mid walba midka kale kama dhaco laakiin saa hore u soo sheegay jaamacaddu way diyaar u tahay qof walba baahidiisa iyo xulashadiisa inay qanciso mar labaad soo dhawaada Banaadir waa jaamacadda runtii waxaa farxad noo ah sharaf noo ah ardayda Soomaaliyeed ee sanadkan ka soo qalin jabinaysa dugsiyada kala duwan inay mataqaana ku soo dhawaadaan jaamacadda Banaadir una doortaan una soo xushaan meeshii ay ka lahaayeen ay ku gaari lahaayeen yoolkooda natiijada ugu dambaysa ee nolosha waxaa runtii maanta farxadii ah
inaan meesha aan ka furnay laab weyn oo loogu talagalay kulliyadda engineerinka kaasoo aan ku soo bandhignay waxqabad rasmi ah kaasoo laabkaasi loogu talagalayo inuu ka qayb qaato barnaamijka dib u dhiska dalka waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha dhismaha dalka ka hirgelay iyo injineeradaba inay soo booqdaan yimaadaan kaasoo loogu baari doono waxyaabaha ay u baahan yihiin si loo ogaado quality-ga ciidda si loo ogaado quality-ga mataqaana concrete-ka si loo ogaado dhismaha meesha laga suubinayo iyo sida mataqaana mustaqbalka loogu talagalayo dhismahaasi inta uu jiri doono loogu samayn doono kaasoo runtii ay kulliyadda aad u soo diyaarisay oo aan runtii uga mahad celinayna dadaalka ay geliyeen shaqada ay qabteen waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo hurmujyada kala duwan ee jaamacadda banaadir oo runtii isku howlay inay la qaybsadaan aqoontooda iyo fakarkooda dhallinyarada soomaaliyeed ee ka soo burqanayso dugsiyada kala duwan iyo macaahidda kala duwan ee dalka ku yaalla waxaan rajaynayaa markii barnaamijkan u dhammaado inaad mari doontaan barnaamij bandhig carwadeedka loogu talagalay inay ku soo bandhigaan kulliyadaha ay ka kooban tahay jaamacadda banaadir waxqabadkeeda iyo aqoonta aad kala kulmanayso si mustaqbalka dhow markii haddii aad laydmo imtixaamka aad u fadhiisataan oo ka soo gudubtaan aad u dooran laheedeen meeshii mihnadda kuu noqon lahayd qofkas waxaa laga rabaa inuu doorto meesha uu mustaqbalka uu rajaynayo uu ka higsanayo sidii dalkaani dibudhiskiisa iyo aqoontiisa u kaari lahayd hadday noqon lahayd dhinaca beeraha dhinaca caafimaadka dhinaca engineerinka dhinaca computer science-ka dhinaca sharciga dhinaca culunta caafimaadka ilkaha iyo ciridka waxyaabahaas oo dhan ay jaamacadda soo bandhigayso iyo qaybo kale oo ka fara badan waxaa waayahana ogtihiin la soo bandhigay mataqaanaa waddankeena rajo badan laga qabaa in la soo saaro shidaal iyo macaadiin fara badan waxaan leenahay kulliyad ka qayb qaadatay barnaamijka isagaa ka baarandegiisa iyo cilmi baaristiisa oo la yidhaha geoscience oo mustaqbalka aan rajaynayno inaad noqotaan injineeradii soo saari lahaa macaadiinta dhulka hoostiisa noogu jirta soo saari lahayd aqoontaas ku jira ayaan rajaynaynaa inay ka soo baxaan marka dhammaan mar labaad iyo mar saddexaadbo waxaan halkan ku soo dhaweynayaa ardayda kala duwan ee ka timid dugsiyada kala duwan ee magaalada muqdisho anigoo runtii ugu hambalyeenaayo waqtigii dacwada ay aqbaleen kasoo qaybgalka ay yimaadeen maamuliintii iyo muwaasiniintii iskuulladaasi in ardadooda ay u dooraan bacdama aqoontii ay ka soo dhiseen formalka ahayd inay u dooraan meeshii ugu habboon ee waxbarasho ka heli lahaayeen si aqoontooda kor ugu sii qaadaan jaamacadda banaadir waxay ka gudubtay ay samaysatay inay bilowdo shahaadada labaad ee post graduate-ka kaasoo wax badan laga soo saarayo oo dhan walba ka qayb qaadanayo waxaan rajaynaynaa ardayda maanta halkan joogta inay aqoon badan ka kasban doonaan wax badan ka heli doonaan mustaqbalkana go'aanka ayaga ay leeyihiin siday u dooran lahaayeen iyo siday wax u noqon lahaayeen marka u horayso dhammaantiin ardaydan dugsiga sare ka soo qalin jebinayso waxaan idinku boorinayaa inaadan u daymo la'aanina jaamacadda banaadir isla markaasna ay noqoto muxuu ahaa doorashadiinna hadba waxaad nagu aragtaan nagu qiimeeya sababtoo ah imanihii iska keen doorta kumanihi waxaan ku leehay waxaad nagu aragtaan nagu doorta macnaha waxaan soo bandhigaynaa haddii alla yidhaahdo hadda ha u daymo la'aanina kulliyad kasta waxay qabato iyo waxa laga barto iyo waxay samaysay ayaa arki doontaan marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad waxaa idinku soo dhowaynayaa jaamacadda banaadir waxaan idin leeyahay soo dhowaada in sha allahu tacaala waxaan idin rajaynayaa qalinjebin wanaagsan oo dugsiga sare ka soo qalinjebisaan iyo idinkoo wada wadataan dhibco wanaagsan ee aan muran lahayn haddii ilaahay yidhaahdo in sha allahu tacaala waxaan idinku rajaynaa maca alfaa'iziin inaad ahaataan kuwii ku soo guulaysta waxbarashada ay ku jiraan isla markaasna ku guulaysan doono imtixaanka aan qaadi doono ilaa jaamacadda la iskama soo gala kaliya marka ilaahay idinkiis waxaan rajaynayaa inaad soo booqataan dhammaantiin bandhigga jaamacadda kuliyadaheeda kala duwan kuna qiimaysaan maxay qabatay jaamacadda maxaase la yeeli karaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu runtii aniga waxay ii tahay fursad gaara jaamacadda banaadir dhacdadii hadda la sheegaayo hotel shamow oo runtii dhibaato badan ay ka dhacday waxaan ahaa goobjoog
waxaan ahaa goobjoog runtii waxaa maaragtay ogaan kara jaamacadda banaadir sabarkeeda adkaysigeeda wax soo saarkeeda goobtaa qofkii joogay xafladdii quruxda badnayd ee isu beddeshay xinjiro dhiiga runtii aadaan uga xunnahay waana la qaybsanaynaa waana la qaybsannay waxaadna arkaysaa inaysan u dhutin dhibkaas dhacay ay ka soo kabatay runtii waxaa ku baxay dad badan oo haliyeeyo ahaa doctor shahiid allah u naxariisto halkan loogu magac daray hoolkaan oo joogno ilaahay ha u naxariisto intii ku baxdoo dhan maantana waxay taagan tahay fiidda saray taagan tahay jaamacadda banaadir runtii annagoo wakiilka dugsiyadan joogo goobjooga ah waxaan ardaydeena u sahminaynaa meel wax soo saar runtii ma ahan meel hamatulhamag ah in ardayda laga rido oon la hubin wax maaragtay ka soo baxaayo iyo intay sii soconayso jaamacadda banaadir wax soo saarkeeda waa la arkay tijaabo way ka gudubtay waxaan haynaa dhaqaatiir fara badan waxaan haynaa injineero waxaan haynaa sharci yaqaano waxaan haynaa geologistayaal cilmiga beeraha dadku takhasusay kuliyaddii waxbarashada wax soo saarkeeda intaasoo dhan waan aragnaa aaday annaga farxad noogu tahay muasasada Maka al-Mukarrama ardaydeennii oo hadda iga muuqda brotokoolka waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo hal tusaale jaamacadda banaadir bishii December ee la soo dhaafay ayaa waxaa ila soo xiriiray arday ka mid ah ardaydeennii dugsiga sare ka baxday batch 16 dhammaystay kuliyadda caafimaadka anigana xaqiiqatan waxaan ku kalsoonaa waxbarashadiisa iyo dadaalkiisa arday kaalinta koowaad ka galay dugsigii sare tartan galay ku soo baxay fursadii bangiga imtixaankeedii inuusan dhulka dhacaynaan ogaa nasiib wanaag waxaa dhacday Saciid wuxuu imtixaan u galay isbitaalka Erdogan Digfer wuxuu galay 10 dhakhtar oo la qaatay ayuu kaalinta saddexaad ka galay u saabiya ardaygaas waxaan ku arkay magaciisa baraha bulshada jaamacadda banaadir oo safka hore ka ahayd ardaydii ku guulaysatay ka mid ahaa jaamacado kala duwan ay ka soo baxayeen laakiin mucdamkoodu iyo inta badan waxay ka baxeen jaamacadda banaadir anigoo hore u sii ogaa aadaan ugu hambaliyeeyey waxaan ogaa hore inuu sii ogaa inuusan dhulka dhacayn sababtoo asagoo waxbarashada ku fiicnaa iyo asagoo gacanta qabatay jaamacadda banaadir waan u hambaliyeynaynaa insha allahu tacaala ardaydan dugsiyada kala duwan ee gobolka banaadir ka socotane doorashada ayagaa iska leeyahay waalidkood laakiin annaga taladeennu in ay doortaan jaamacadda banaadir sababtoo ah waxaan haynaa wax soo saarkeedii waxaan haynaa khaanad kasta oo ka mid ah khaanadaha aqoonta inay ku kala jiraan ee kuliyadaha kala duwan